wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. kumanaan ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa kaga hortegay degmada Qoyto oo ka tirsan gobolka Togdheer, waxaana ay dadweynuhu saaka ku labisnaayeen calanka gaarka ah ee xisbiga kulmiye kan Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kalena waxaa soo dhaweyntani ka qayb qaaday gawaadhida ay saarayeen codbaahiyaasha ay ka baxayaan heesaha gaarka waa xisbiga kulmiye iyo kuwa wadaniga. intaasi kadibna waxaa loo soo galbiyay wafdigan uu hogaaminayay Muuse Biixi Cabdi dhinaca magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaana meel kasta oo uu soo marayay wafdani intii aanu soo gaadhin xarunta khayriidda magaalada Burco tubnaad dadweynaha aad u tiro badan oo ku soo dhaweynayay sacab iyo caleemo qoyan. wafdigan uu hogaaminayay Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo biyashubtay xarunta fagaaradda khayriidda magaalada Burco ee ay kala hadlayeen kumanaan ka mid ah dadweynaha magaalada Burco. kooreen waxaa fagaaraha khayriidda ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Axmed Cabdi Falay oo si weyn uga weeraray xisbiga kulmiye isagoona sheegay inay soo dhaweynayaan gudoomiye Muuse Biixi Cabdi. warasaabka gobolka Togdheer oo isaguna ka mid ah xubnihii ka hadlay khayriidda magaalada Burco ayaa wax gacmo furan ku soo dhaweeyay wafdigan uu hogaaminayay Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xilligan xisbil xaakimka, waxaana uu gudoomiyahan ugu baaqay dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer inay ka sugaan xisbiga kulmiye sababihii iyo waxyaabihii ay u doorteen. Allahu akbar walaalayaal waxaynu joognaa saacad dambe, waxaynu joognaa waqti qorraxdu kulushahay, waxaynu doonaynaa inaanu ku soo dhaweyno halka wafdiga inooga yimi caasimadii Hargeysa ee uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo guddigiisii dhammaan madaxdii xisbiga oo dhan iyo dhammaan wafdiga dhammaantiiba waxaynu inaynu ku soo dhawaada gobolka Togdheer, waxaynu ku soo dhawaaynaa magaalada Burco gobolka Togdheer. waxaan leenahay walaalayaal ku soo dhawaada, innaguna waxaynu soo dhawaynaynaa si aad iyo aad u qaaliya. waa magaaladeennii, waa magaalo madaxdii labaad. waxaan leenahay ku soo dhawaada walaalayaal, waxaynu ku soo dhawaynaynaa walaaltinimo, xisbinimo, dowladnimo, qarannimo aynu ku soo dhawaynaynaa haddii aan nahay gobolka Togdheer. intaasi kadib waxaa hadalka la wareegay Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu si weyn uga xog waramay xisbiga kulmiye iyo waayihii kala duwanaa ee soo maray. Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda xilligan uu dalku ku jiro ee isagoo taabtay diiwaangelinta lagu gelayo golaha deegaanka oo uu sheegay inay xisbigoodu taageersan yihiin in lagu galo bilaa diiwaangelin, isagoona cod taageero ah ka dalbaday inay ku taageeraan shacabka ku dhaqan magaalada Burco. Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale ku sifeeyay socdaalkiisan inuu yahay dardargelinta xisbiga kulmiye maadaama ay soo dhowdahay buu yidhi doorashada golaha deegaanka. oo dhalinyaro leh, oo hooyo leh, oo hablo leh, oo oday leh, oo dhalinyaro leh, oo ciidamo leh, oo madaxdii u sarraysa leh, aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa. jazaakumullahu khayr. walaalayaal soo dhaweynta maanta aad muujiseen waxay sharaxaysaa oo micnaynaysaa qiimaha ay leedahay iskaashiga, is-aaminaadda, wadatashiga, mabda'a iyo xisbinimadu. walaalayaal maanta soo dhaweyntiinaasi waxay farriin u tahay oo ay kalgacantooyo tusaysaa inaanu mid nahay kulmiyaha jooga Laasqoray iyo ka jooga Saylac iyo inta u dhaxaysa inay xisbinimada iyo mabda'a la isku aaminaa tahay wax ka weyn qoys iyo reer iyo deegaan yaroo kooban ay dalka iyo qaranka oo dhan tahay. walaalayaal waxaad tusteen inay tahay xisbinimadu koritaanka bulshadu ay u korayso inay hore u marto oo ay wax isku darsato oo ay talada isku aaminto oo xoolaha isku aaminto oo nafta isku aaminto oo iyagoo mid ah cadowgoodana iska dhiciyaan dalkoodana horumariyaan. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dareenka aa muujiseen. intaa haddaan ku dhaafo soo dhaweynta waxaan doonayaa inaan idiin sheego ujeeddada socodka iyagu ahaa. maanta socodka iyaga aan u soo baxnay haddaan xisbiga kulmiyanahay wuxuu ahaa 3 qodob. qodobka koowaad walaalayaal
idinku aad iyo aad u mahadsan waa markii ugu horeysay ee wafdi miqaamkan leh soo gaadho oo ka socda xisbiga xaakimka kulmiye uu soo gaadho magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Xabsaaq Faarax Cabdilaahi, shabakada caalamiga ah ee Burco Online, magaalada Burco.